waxaan ahaa 26 sano jir markii ay dhacdadani dhacaysay. Maalin maalmaha ka mid ah aniga iyo eegeyga lagu magacaabo Molly ayaan lugeynayay wadada. In cabaar ah markii aan socday ayaan arkay 3 nin oo fadhida guri hortii, sigaarna halkaasi ku cabaya. Laba ka mid ah wax dan ah xaggooda kama gelin, balse midka saddexaad ayaa fiiro gaar ah ii qabay. Indhihiisa aniga ayay igu maqnaayeen. Da'diisu waxay u dhaxaysay 20-meeyada, wuxuuna lahaa bidaar. Markii indhihiisu iyo indhahayga isku dhaceen ayaan si dhaqso leh dhinaca kale u eegay. Kadib waxa uu bilaabay in uu gadaashay ka soo qayliyo, isaga oo dhahaya, hey quruxleyda, waxaan caadi ahayn ayaad ka wadataa ee kaalay halkaani aan wado baashaalne. Kadib waxaa qosol bilaabay labadii kale ee la fadhiday. Waan iska indha tiray, waxaan u cararay gurigeyga. Uma aanan sheegin waalidkay waxa aan la soo kulmay, sababtoo ah waxay iila muuqatay inaysan ahayn wax sidaasi u culus, balse waan ku qaldanaa midaas. Maalintii xigtay sida caadada ahayd anigu iyo eegeyga ayaa israacnay. Markani xoogaa cabsi ayaan dareemay oo waxaan hore u soo qaatay basbaas buufis ah. Waxaan soo agmaray isla gurigii uu ninka fadhiyay, aniga oo rajaynaya in aanan arkin ninkaasi mar kale, balse nasiib daro wuuba fadhiyaa. Markani waa isaga oo keliya. Isla markii uu i arkay waxa uu ka kacay kursigii uu ku fadhiyay. Cabsi ayaa isoo gashay. Waxaan soo xambaarsaday eegeygii aniga oo isku dayaya in aan ka baxsado, balse wuu iga daba yimid si xoog leh ayuuna dhabarka igaga riixay. Waxaan madax ugu dhacay dhulka oo ahaa shub adag, waxaana gacmahayga ka baxay eegeyga Molly. Waxaan bilaabay in aan qayliyo, balse cidna ima maqli karin sababtoo ah afka ayuu i qabtay. Waxaan isku dayay in aan xagto gacmihiisa. Isla markii waxaa igu soo dhacay in ay jeebada igu jirtay basbaas buufis ah. Waan soo qabsaday, kadib ayaan indhaha ugu buufiyay. Isla markii wuxuu bilaabay in uu iga foqo isaga oo weliba qaylinaya. Waxaan gacanta ku soo qabsaday eegeygii. Markii aan guriga imid, wax walba oo aan la soo kulmay waxaan la wadaagay waalidkay. Aabahay oo ah nin howlgab ka noqday ciidamada militariga ayaa wuxuu isku dayay in uu ninka gurigiisa aado, balse hooyaday ayaa ku tiri isdaji, marka hore waa in aan wargelinaa saldhigga booliska. Sargaalka booliska ayaan u sheegay waxa dhacay iyo dhaawaca isoo gaaray, balse waxba ima aysan qaban. Dhowr bilood kadib waxaan shaqo ka bilaabay dukaan lagu magacaabo 7-Eleven. Maalin maalmaha ka mid ah aniga oo shaqadeeda habeen ka baxay ayaan waxaan u sii socday gurigeyga. Marka aan midig u leexo is-iray ayaan waxaan arkay gaari si gaabis ah ama tartiib u socda, wuxuuna ku dhawaa halka ay dadku ku lugeeyaan. Anigu wax fiiro gaar ah ma aanan siinin marka hore, balse markii aan wax yar dhaafay gaariga ayaan gadaal eegay. Waaba 2 nin oo gaariga ku jira oo aniga isoo eegaya. Waxaan u sheegay waalidkay. Aabahay ayaa banaanka u soo baxay si uu u soo eego, balse waxba muusan soo helin ilaa iyo laga gaaro habeenkii igu argagaxa badnaa nolosheyda. Saacaddu waxay ku beegneed 2 subaxnimo ama 8 saac habeennimo. Eegeyga Molly ayaa bilaabay in uu qayliyo, isaga oo u muuqda inuu arkay wax daaqada taagan. Anigu aad ayaan u daalnaa. Waan ka cajisay in aan eeyga qayladiisa ku kaco, balse waxaan ku soo toosay markii aan maqlay eeygii oo xanuun la qaylinaya. Indhaha ayaan kala qaaday. Waxaan arkay eeygii oo sagxadda dhulka jiifa, weliba dhiiggiisa dhulka ku qulqulaya, iyo nin i hortaagan oo leh, ma waxaad u malaynaysay in aad iga badbaadi karto? Maya, waad ku qaldaneed midaas. Wuxuu bilaabay in uu sariirtu igu soo koro, kadibna feer ila dhaco isaga oo wejiga iga feeraya. Waxaan laad kaga tuuray sariirta, balse ma uusan jabin. Kadib waxa uu bilaabay in uu suunka sarwaalkiisa furto. Aniga oo aad u cabsanaya ayaan qaylo bilaabay ka hor inta uusan afka i qaban. Isla markii waxaa qayladeeda maqlay waalidkay. Aabahay ayaa albaabka soo furay, hooyadayna way daba taagneed. Aabahay waxa uu bilaabay in uu ninka 2 mar ka toogto xagga hoose. Ninkii waxa uu bilaabay inuu cabaado, aniguna laad ayaan sariirta kaga sii tuuray. Aabahay waxa uu bilaabay in ninkii oo dhulka jiifa uu garaaco isaga oo aan wax naxariis ah tusin. Kadib hooyaday ayaa wacday booliska. Aniga waxaan u cararay eegeygii Molly, balse mar hore ayay dhimatay. 5 daqiiqo kadib booliskii ayaa yimid. Ninkii ayay xireen, balse waxaa soo baxday in uusan keligii ahayn. waxaana lala soo xiray labadiisii saaxiibo. qorshihiisa waxa uu ahaa
inuu i afduubto dabadeedna i kufsado. Nasiib wanaag waa la qabtay, waxaana lagu xukumay 16 sano oo xabsi ah. Argagax iyo naxdinta aan ka qaaday dhacdadaasi awgeed, ilaa iyo haatan waxaan la noolahay waalidkay oo keligay meel kuma noolaan karo. Sidoo kale waxaan aad ugu naxay waxa ku dhacay eygeygii lagu magacaabayay Molly. Runtii waan u xiisay iyada, aad baan ugu xiisay Molly.